magacaygu waa Nimco Xasan Cabdi waxaan ahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Somali Women Journalism Club markaan ka hadlo tacadiyada suxufiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha waa dhibaatooyin aad u far badan ayay la kulmaan gabdhaha hadii ay ahaayeen markay shaqada raadinayaan oo waqti badan ay ku bixiyaan ninka ragga markuu shaqo raadiyo dabcan waxa la leeyahay shaqo kama banaano ama maalin hebel imo ay gabadha sida lama dhahay inuu ku soo noqoto oo intaysan maamulka sare gaarin waxa laga yaabaa in dadka kale ka hooseeyna dhibaatooyin u geystaan ama ay yiraahdaan bal aan ani aad wada hadalna iyo arimo kale waxa kamid ah oo kale xuquuqaadka inaysan sida oo kale eelsan la mid ahayn ragga xarumaha stationada qaarkood walow ay jira station oo rag iyo dumarka dhanka xuquuqaadka marka la leeyahay inay wada siman yihiin sidoo kale waxa kamid ah dhanka tababarada marka loo eego stationka marka tababar loo gali leeyahay saddex qof aan u baahana in rag dhan ay soo wada diri jireen oo hal gabar aysan imaanin qofka marka waxa isleedahay niyadda ayay ka jabaysaa marka qofka gabadha ah suxufiyada taasna waxay dhibaato ku tahay in gabdhaha kale suxufiyiinta ah ay raba saxaafada barta ay raba inay ku soo biiraan inay u arkaan caqabad marka waxaan dhihi lahaa caqabad walba ay soo wajahdo guul ay u dambeyn doontaa caqabadahan waxa lagu bartaa sidaan aaminsanahay ama qaladaadka u saxa in aad hamigaaga aad gaarto waxaan dhihi lahaa gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in caqabadahaasi ay si ay isaga gudbi lahaayeen ay ku dadaalaan aysan u niyad jabin caqabadan ayaa ku qabsatay bal shaqada ka har anagana suxufiyiinta Soomaaliyeed gabdhaha daanahayna waan ka caawin doonaa gabdhahaasi in aan dhiirigelino shaqadoodna ay sii wataan